ciyaalka Facebook sidoodii inaad u hadashid maaha taslo waxana marka inuu gurigi iyo ciyaalkiisi iyo farol arrimihiisa hoose inuu ciyaalkaaga aqaana iyo aqaana iyo reerkaaga iyo guriga anoo ku sii dheeraan maynay aad buu khalday taas haye intaas waa inta haye bal hadalkii goodax aan xogaa ka dhigaysan waxaan rabaa farole dulmi badan uu sameeyay inaan muxuu ahaa wax ka iraahdo farole horta waqtigii uu muxuu ahaa fariisaha meel ayaa la gaaray dastuurkan uu ku waashay oo haddana ilaahay ka qabtay maxaa yeelay inuu gudoomiye u noqday ayay ahayd aniga farole waa la soo shaqeeyay markii dastuurkan ku meel gaarka laga shaqeynay ummadda Soomaaliyeed soo ninka u kadeeday iyo dastuurkan ciladahu leeyahay dhan inuu asugu sabab ka yahay anigana aan ka marxaatay دستور سوماليا اللي ديارنا أصلا دستور بنتلان ديارنا وحين قتي إنه قفوا بمدو قارت كسر أنت وضنك كلا بحي لها دستور لان لهان لها إلا تناسل كي دبا تبضن وهذا تاجر أي كمتها بنتلان قف عن لهين مجرته أنا قاعد لحد لا قف إجاب بنتلان جريسن مجرته وهذا الكيجا وعددكيga waa wadanka meelaha ugu jecel waa kamid laakiin hadaa dhageysatid ninka la yiraahdo farol wuxuu yiri aniga iyo Umar Cabdirashiid ayaa gaalkacay waxaan ku kala seexan in deeqda waxbarasho ummadda Soomaaliyeed aan la haatin qaadan bal fiir wuxuu dadka Soomaaliyeed u sheegay waxa heshiis si fiican u dhageysto wuxuu yiri aniga iyo Umar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo hada xamar ma ogow gaalkacyo ku kala saxeexnay in 25 deeqda Soomaaliyeed la siiyo Puntland waxa soo kama qaldan طبعا waxba ka qaldan Umar Cabdirashiid heshiiskaas meel u geeyay horta lama yaqaan كل حمر مكان كل وزارة وحبرش المعركة وأوح نمان ربونت العنسلاء حق سكوش شيء كل يعني أساسهم فسرت ما أنت إنه فجار اللي سو استاجوا وجر كل نقصده عمر عبد الرشيد يري شن إلى عتنا عدلا ضحي فرض الوحري في مركز لكن عقلية داس نكون شقينا نوع عسل الله الشقية سيدتها معايا عمر عبد الرشيد حمر وكين لها dadku soo bandhigi lahaa doo waxaas oo kale uu sameeyay laakiin kulay oday qoorta midi uga hayo oo reer Puntland ayuu iskaga reebay san qiyaasay wuxuu sheegay been badan way ka mid tahay nin ka shaqeeyo runtina laf dhabar u ah waxbarashada Puntland oo hadda sidaan maqlay markaan warkiisa maqlay kadib leeyahay sheegay inuu ka helay Alan Smith shaqo ka helay oo EU-da u shaqeeyo ayuu yiri wasaaradda ka xisatay fiir masabadaada iyo ummadda fidnada u dhaxdhigay wadaga 80 jirka Soomaaliya waxay tiraahdaa ninkaad kaba ka tolanis kabiisa la fiiriya hadduu rabo inuu Puntland role model u noqdo oo astaan lagu daysado oo noqdo si kale u dhaqmi lahaa reer Puntland waxa ay tahay u jeedaan hal qof oo kugu daysanaysa ma jirto ummadda beenta iyo fidnada iyo dulunka aad ka dhex wadid inaad ka joojiso cumriga joogtaay ayaa fiican haddii waxbarashada Soomaaliya iyo Puntland ay la jecel kugu hayso oo aad tahay nin wax barbaariyo gurigaaga ka muuqalahay guriga adiga aad leedahay ee reer farole ay ka muuqalahay wiilkaagu intuu soo istaago reer hiiraan uma abaal sheegteen ma dhaheen fatahaadii waxbaan idin soo dirnay good xaqabta waxa aad soo saartay soo abaabisay waa dadka noocaas marka haddii aad tacliinta Soomaaliyeed iyo abowga Soomaaliyeed rol model oo noqon lahayd horta meeshaas ay kaaga halawday sheekadu
waxaad joogtaa waktigii aad fariisan lahayd meel inta aad joogtay oo aad Puntland madaxda u ahayd ummadda Soomaaliyeed kadeeday markii reer Puntland iska ka qabteen ma aadan fariisan ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas hal maalin gaama nasan hal maalin shaqo ka qabo waay haddana waxa afduub ku haysaa kamaanta joogo adeer waxaan kugu waaninayaa ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland ha ka nastaan waqti cumri bilisaada joogtaa meel fariiso ummadda ka fariiso intaas faroole ayaan ugu nastaxin lahaa haye waa garan hadalka ka qeylaalsan Puntland oo dhan waa ka ولا بلس adag buu lahaa waxa loo qeylay run badan baa ku jirta runta laga qeylinaya ila been laga ma qeyliyeen dawladda federaalku khaladaad badan oo jira baa leedahay haye laakiin sidii marka u hadlayso wasaaradda waxbarashada ugu saxsantay waa wax sax weey haye war ardaydu si dhaxdhaxaada ha loogu qaado deeqa waxbarashada waaya faroole hadaladiisa ma eegin haye faroole point wixii uu ka hadlay oo ka leexday dhinac ku aad sida good u hadlay wasaaradda waxbarashada imtixaanaadkii wuxuu ku dheeraaday intuu soo qaatay 22 warqadood dastuurkii Soomaaliya dastuurkaas wareeriyoodaga dastuurka faroole wuxuu haystaa inuu isagu sameeyay leeyahay uu iska dhaadhiciyay meel uu yaalo haye faroole waxa dadku ay garan laayeen madaxweyne kuma magacaawna Puntland maaha oo dawladda federaalka oo aqalka sare ku jira kuwa federaalka ka tirsan aqalka sare oo reer Puntland baa jiro aan waxa ka hadlin isagu maamul soo boodaya iskili meesha iskili jagadiisa waa maxay horta jagadiisa garan waay madaxweyne maaha islaamkii Ciise Maxamuud maaha soo hadda maad garan meel Allah iyo meel faroole horta ka socdo faroole waxa weerarinayaa waa qabyaalad aad u hooseysa oo ku siman geedkii timirta uu sheegay baladi timirta uu sheegay marka isagu hadda wuxuu arkaa Puntland oo scholarship-keedii la soo farageliyay oo ma arko isagu wuxuu arkaa dawladda federaalka oo Ciise Maxamuud faragelisay fishankiisu waa intaa orodayga taxakaali kii odaynimada iyo kii Soomaalinimada ayuu misgareeyay kii qabyaaladu eegay kii qabyaalada hoose dawladda tii hoose ka ciyaaray la marada waxaan qabyaalada lagu sheegayo haye oo waxbarashada ka jirta waxa jiraba haye intayna taa u galin hadal goodax uu sheegay baan dib ugu noqonaa isagana oo ah wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayuu wuxuu yiri berdweedo 2 week uu marti noogu ahaa magaalada Muqdisho meel socdaysan berdweedo uu igu ahaa 2 week Muqdisho marti wuxuu ahaa nin aad u fiican haye laakiinse ma aha nin ay talo ka go'do talada wasaaradda waxbarashada ama go'aan ka gaari kara ama isagu kule reed ama saameyn kule wasaaradda maaha wartis labada eray taa uu yiri Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ah wasiirka waxbarashada waa runtiisa wuxuu ka soo jeedaa gobolka Sanaag marka wasiirka waxbarashada magacuyaal buu yahay sanaagaas nimanka ay haysaystay faroole iyo isla ka tiraya dambe ma dhaxgali karo mana oran karo sidaas aanu qabnaa laakiin wuxuu oran karaa maxaan iraahdaa marka wuxuu noqon karaa isagu hayeenka wasaaradda waxbarashada inta uu ku saxay intaas kaas waa u saxday taa u sax haye laakiin goor dambe uu ogaaday goodax in wasiirku uu reer Sanaag yahay marka xabad la helay marka la helay wuxuu khalday haye wasiirkaasi berdhood baan is aragnay marti noogu ahaa magaalada Muqdisho marti noogu ahaa jalo wasiir Muqdisho nin wasiirku nin ku ah marti ma jirto Soomaaliya anoo hadda tago wuxuu oranayaa berdhood cali noogu ahaa marti baan ku ahaa warwaas seegtay taas marti goodax marka inta aanu soo fadhiisan hadalkiisa soo soxo imtixaan iska soo qaado dabeetana hadalkii ha galo yasiin qabyaaladdan lagu sheegayo madaayid ba oo scholarship-ka oo dhan baa reera mise waa wax dhaba oo jira taas la wareeray video ma soo socda xilligii faroole uu madaxweynaha juxana uu ahaa wasiirka waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashaduna uu ahaa nin ka soo jeeda gaalkacyo ama beesha Cumar Maxamed saddexdoodaas markay
ahaayeen jawooyinkaa kala haysteen 5,000 arday ayaa soo fadhiistay imtixaankii dabeetana intii scholarshipka xaq u yeeshay ee dhibcaha fiican ku baasay ayaa la yiri soo xulo Turkiga baa nin u diro wuxuu yiraahday bal naqsada aan cidina qaadnay 100 arday u dhaayo xarada bal 100 arday ee la yiraahdo la qaado ayaan halkan ka daawanaa iyagoo leh 40 waxaan siinay Ciise Maxamed 40 waxaan siinay Cumar Maxamed sida ay nabadgelyo سيبا لو كرتي وين انت وزاره انت فدرك اوغادين وانت فيديو كنت وي وساسيه فيديو داون secondary school ardayda galaysa ee foomada u tartamaysa garowe waxa ku guuleystay 23 arday ayaa ku guuleysatay gaalkacyana waxa ku guuleystay 13 arday markii la isu geeyo waa 36 arday 36 kaas arday oo secondary-ga ah ee galaysa sanadkan secondary-ga foomada iyo form 2-yada insha Allah dawladda Turkiga way noogu deeqday inay qaadayso insha Allah berritay baxayaan dhinaca jaamacadaha ardayda u tartamaysay garowe imtixaankii maanta waxa ku guuleystay 42 arday ayaa ku guuleystay imtixaankii garowe ee xagga jaamacadaha lagu tartamay maanta waxa ku guuleystay 42 arday 40 ardayna waxay ku guuleysteen imtixaankii aan ka qaadnay gaalkacyo isku geyn Puntland ardaydii imtixaanka u gashay waxa ku guuleystay 82 arday ayaa jaamacadu ah candidate insha Allah waa ayaguna way baxayaan تعالي وواليه محمد الأمر بيان مركا اللي باشو بنانك يتعلى وركس بعدي مسمعت ما وركس عادي مركا محب فدراك محكو هايستان مركا بيواليه دي وواليه بارس قبيلة وحي يعني لو داي لي يمدا توس هو هذا نو داي وحي وصحتاس دين لي هذا قبل كاس بوتلاند وقبل خير قول لي هي وحبرشيس خير قول لي هي انا اقول انا اقول كرعسن انا تا وكو ادين اد بقول كرعسن لكن سو قبل Soomaaliyeed وقبل بلاد kala duwan oo walaalo lagu sheego ay degan yihiin hadana waxaan leenahay 42 reer hebel 42 reer hebel garmaha waa gardaro okay ragga qabyaalada hoose ka shaqeynaya waxa uu waaweyn faroole iyo ninka juxalayra labadaas walaal waa baha wax barashada ee qabyaalada isaga dhalay cadaalad wax barasho weliga ma aragba ay jifada uu ka tirsan yahay cid aan ahayn oo uu dhoofin karay oran karay scholarship bahashay ma jirto intii waa nin si fiican loo garanayo inna lillaah waaya faroole hadii uu yahay nin diiday cadaalad u ordaya ama dastuurka waraqahan badan ee hurgufayo ee uu leeyahay cadaalad baa laga tagay maalintii baarlamaanka dadka lagu leeynayay ee cagafta la mariyay ee meedkii oo yaala aroortii la codeynay aroortii farool magaalada joogay intuu soo kacay xitaa muu oran wariyaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un dadka meesha ku dhintay dirsna wallaha dadka dhintay qura ayaan u tacsiyeynay bas xitaa muu oran la inkaar gurday goodax markuu ka hadlo waa ka soo booday بقول لا تورا قد سو قال markan dantiisi baa la soo galay dantii reerkiisi ayaa la soo galay markan dadka la leeynayna dantii reerkiisa loo leeynay oo inuu ka hadlo ma xaq ma lahayn marka ninka odaga faroolisa waxaan oran lahay baasha wado bareed toos bareed waxa taa nin qabiili baan ahay reerkayga ayaan halka u joogay waa intaas halka ma ka baxnaa waxa la yiri laba maroodi markay islaayaan cawska digada noqda wala soo baba waxa iminka basbeelaya oo dhibaato ay ku imanaysaa ardayda diyaarka ah ee waxbarashada diyaarka ah waxa la ogaaday Turkiga iyo Yaasinow iyo meelaha waxbarashadu ay tagayeen in dad reer miyiga oo iskuulka meelaha yaryarta soo marmaraan oo asaaska dabeetana scholarship-ka adeerkood u diray ku tagay Malaysia iyo wadamo kale ay maanta banaanka ay waxbarashada caabayaan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un hadii tan ay si fiican u dhacdo oo la isku afgarto in imtixaanka cadaalad loo qaado cadaalad loo saxo waxa soo bixi doona kumaankum ardaya oo danyara oo reer yar ka dhashay oo noqda kuwa ugu heerka sareeya ee wax ku soo kordhiyay isla Puntland ha ka faa'iideysto ka faa'iideysto qabyaalad haye intaasaynu kaga bixi doonaa Puntland hawleed waa saase waxaan tagi doonaa Boorame haye haye inta ka daran baa ka shidan war ilaa anaga xarqnaa wala saabka gobolka
awdal waxa la yiraahdaa magaciisa Cabdiraxmaan Axmed Cali haye ayaa loogu yeedhay meel dhalinyaro ay soo agaasintay oo ay dadka ugu yeedheen oo ay yiraahdeen qof walba dollar tabarruca ha keen $1 oo intaan dollarada isku ururino markii wadayr inoo jeexdaba aynu ku samaysano markii koronto aynu hagaajiso aynu ku samaysano markii biyo aynu ku habaysan karno aynu ku habaysan waa ra'yi positive oo aad wanaagsan markii dawladii ay gabtay weeye inay jid samayso oo nal samayso oo biyo samayso ay ciyarkaasi sidaas ugu yeeray dadka loo cashmay ku jiray barasaabki haye barasaabki markuu meesha soo fadhiistay in dhalinyaro ayaa hadalka xiriirinayay haye warqad buu haystaa inuu sida dadka u kala horeeyaan ayaa loo hadlaya haye dabeetana ninkii barasaabka ahaa ayaa qeylqeyliyay haye miiskii uu ku fadhiyay buu garaacay wuxuu la qeylinaya meesha waskeetayna ama hadalka nasiya haye anu ma suu karay wax haye war la araga nidaam dawladnimo akhlaaq lehna muu soo marin miiskii markuu gargaraacay yarkii xoogaa ka fog arkay ninka boodboodaya haye dabeetana soo wad uu kacay haye war nagala tagay meeshaan dhar waskeetayna haye وهبينيمو فيد أيه مركو كعاي أيه ضدك قيلين صواحنكي واربح بحبيله نقتك أول محمد دشي يركي ميكروفون هايستن بحبيله دول جابه هيه إنه هوشي وصي وضعنا هيه دبد الباك مركو بحي أيو كحم هذا إن ضدك أيكو هوريان إن يكون هوريان ما يرى هذا نقبح ولا قاعد خمسة ولا يركي الميكروفون كأكويل هذا نقبح يركي أكويل نقبح ولا هذا دين تبغى أفلق هذه إنا لله وإنا إليه راجعون وربحوها دينتي أيوة عاي بابليك أيوة ضدك بلانك جوارد هي ترى عسكر بو يركب واحد جذور دقي سعودي حفلة دولة هذا البيدي هي نيكا أرنتي دينتا وأفلقات دي وحكى هذا لي مفر بدن أو علماء بدن وح عن كسوق هذا كرينا نيكا ليلا الشيخ حسن دهي وحكى هذا الشيخ عبد الله الشيخ علي جوهر وعلماء قبل بورمي هي رجاسي waxay wada cadeynayaan inuu ninkaas diinta aflagaaday oo dad marxaatiyaal meesha jooga ay jiraan markuu ugu horeysa in yar baan ku saaraya isagoo inkray oo le ma ayran anu ma ahayn bal marka hore daawasho wanaagsan waxaan idin sheegay marka ugu horeysa horta qof islaam ah la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku ashaati oo islaamku ah marka labaadna mas'uul bana sabab aan diinta ku caay iyo ila qofku intuu xaflad tago diinska ma caay xaflad baaba laga yeeray oo munaasabad aan diinka caay ma jirto oo meesha rays la yaabo oo aan diinka caay ma jirto هل هناك سواد ديدي ودي سمع الشيخ حسن دهي